baarsanguuni oo horaantii bishan ay la wareegeen ciidanka dalka waxa uu jira magaalada Kismaayo qiyaastii in ka badan 45 kilomitir waxa haysta shabaab waxa ay ku fureen deegaanada ku dhow deegaankan biyihii webiga waxa ku barakacay qoysas fara badan oo guryahoodii ku waayay si ciidanka xoogga dalku aanu halkan maanta aan joogno uu soo imaan laakiin taas waa ay beeniyeen sababta ay beeniyeenna wax badan ayaan idinkaga sheegaynaa shabaab inta aan awood looga saarin Sanguuni waxay isticmaaleen xeelad kasta ay ku sii joogi karaan deegaankan hareeraha wadada laamiga waxa ka muuqda biyo aan ku ogolaanin in laamiga dhinaca kale uga degto biyahan oo ah webiga Jubba oo shabaab ay ku soo fureen deegaanka Sanguuni iyo deegaanada ku dhow ayaa ujeedkoodu ahaa si ay uga hortagaan in ciidanka qalabka sida uusan uga soo gudbin baar Sanguuni oo ay ku lahaayeen saldhig ciidan laakiin taasi kama hor istaagin xoogga dalku inuu biyaha dhexdooda kula dagaalamo al-shabaab oo ugu dambeynna uu kala wareego deegaanka Sanguuni qoysaskii halkan ku noolaa waa ay ka barakaceen markii ay harqiyeen biyihii webiga oo ay ooda uga soo qaadeen al-shabaab waxayna barakacayaal ku yihiin tulooyin kale ay ku yaala gobolka sidoo kale dadkii ku noolaa deegaankan badankood waa isaga bixeen halkan waayo inta dagaalku uu socday al-shabaab waxa ay jareen dhammaanba isgaarsiintii halkan ka shaqayn jirtay taliyaha ciidanka xoogga dalka Sarreeyagaas Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa tagay deegaankan Sanguuni gaar ahaana jiida hore ee ku dagaalameen ciidanka qalabka sida iyo al-shabaab waxaana uu sheegay in dagaalku uu siin socon doono isagoo bagaadiyay saraakiisha iyo ciidanka howlgalka fulinaya ciidamada halkan jooga jiida hore fadhiya waxaan leenahay hambali aanu diraynaa waa mahadsantiin baan leenahay geesiyaal baa tihiin duruuftaas adag oo hadda aad ku jirtaan muxuu ahaa ayaad u adkaysateen oo qorax leh oo qabow leh oo kanaaca leh oo cudur leh oo xabad leh kulliga u adkaysateen ciidamadu wax sii soconayaan waana sheegnay waxaan halkaani waxay noqonaysaa meelo hadda kusii meel gaar oo lagu hakado meel kalena waa lasii tagayaa diyaaliya oo kaga munaasibsan meeshaan iyo meel kale ayaa difaac u noqon doonaa weerarku waa iska soconaya ciidanku jiida hore tagayaan maalinba in ayaa inkastoo al-shabaab ay mararka qaar soo duqeeyaan deegaankan Sanguuni haddana gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ayay 9 bisha la soo beegsadeen afaafka hore ee saldhigga ciidamada xooggu ay ka sameysteen deegaanka marka aad la sheekaysato ciidanka qalabka sida ee halkan ka dagaalamaya waxaad beeninaysaa inay jirto awood dawladnimada Soomaaliya hortaagneed muddo ku dhow 10 sano waayo halkan ma yaalaan dabaabada ay leeyihiin ciidamo ajnabi ah oo ka barbar dagaalamaya kuwa dawladda federaalka ah iyo maamulka Jubbaland oo isgarabsanaya